بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan filayaa intii sheekh al-Misakhriyina fahamteen warkuna intaa kama badna. anigu darsi inaan bixiyo uma fadhiyo, laakiin laba saddex eray oo kooban darsiga meesha ku qoranay waa sidee guusha loo gaadhaa. socanka maaha, weliba guusha dhabta ah. intaynan wasaa'isha isweydiinin oo ah sida loo gaadhayo maxaa guul ah, qormaynu odhan karnaa buu qofka bini'aadamkii guulaystay ama guul dhaba goormuu gaadhay. maalan bini'aadamku si uu guul ama guuldarro u sheego waa inuu hadaf taarget waa la yidhaahdaa yool waa inuu calaamadiyaa. meeshaa markuu xadide ee calaamadiyo ayuu isweydiinayaa ma gaadhay mise maad gaadhin. hadduu gaadhayna wuxuu odhanayaa waan guulaystay, hadduu gaadhi waayana wuxuu odhanayaa waa maxay, waan guuldarraystay. socanka maaha. masalan qolada ordaya ee baritanka ku jira meel baa maro yar loogu xidhaa ama xariiq loogu jeexaa, dabeetana waxaa la ydhahaa soo dhabaabaceeya, soo orda. ka ugu horreeya xariiqda gaadha gacmaha cirka u taago yidhaahda waan guulaystay. socanka maaha. yacni hadafku waa in xariiqdaa la gaadho oo intan kula ordaysa aad ka dheeraysid oo aad ka hor gaadhid xariiqda. haddiise aan xariiqi jirin oo hadaf meel loo ordayaa jirin, ninba meeshuu doono hadduu cararo kee guulaystay. markay qaar xaggaa u cararaan hadday qaarna xaggaa u cararaan kee baynu odhanaynaa baa guulaystay. guul iyo guuldarro toona sheegi mayno, waayo hadafkaan xadidnayn. nolosha qofka bini'aadamkii markaa waxay leedahay ahdaaf kookooban oo yar iyo hadaf weyn oo ka xaqiiqiga ah. ahdaaf kooban bay leedahay oo maalan arday baa tiin iskuulka markaad sannadkan dhiganayso ee aad wax soo akhrido, aad diyaargarowdo, imtixaanka aad gasho, aad baasto, waxaad odhanaysaa waan guulaystay. socankaa maaha, waayo hadafkii koowaad ee ahaa sannadkan inaad dhammayso baad dhammaysa. markaad 3 sano ama 4 sano dhammayso waad guulaysatay, waayo waraaq yaroo magacaagu ku qoran yahay iyo inaad secondary school dhammaysay waa lagu siinayaa. markaad jaamacad gasho waan guulaystay baad leeday, oo koofiyado yaryar iyo maryo yaryar aan kuween u ekayn hore inta lagu xidho ayaa lagu odhanayaa waa calaamadii guusha, dabeetana waraaq baa lagu siinayaa. haddaba nolosha goormuu qofka bini'aadamka odhan kara waan guulaystay? noloshu waa wax kooban. ninka dhallinyaradii inta badan nolosha intasa ku arkaa, waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray. imsaad jirtay? anuu 20 baan maraya, 21, 22. laakiin qofku markuu da' gaadho 60 meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa war talow maxaa ka hadhay? 5 baa kuu hadhay, ma 2 baa kuu hadhay, ma 10 baa hadhay. intii xaggan laga soo tirinayay dhammaatay. hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa war talow intee ka hadhay. haddaba nolosha oo dhan markaynu eegno goormaynu odhan karnaa qofku wuu guulaystay ama wuu guuldarraystay. waayo qof walba xaqiiqada bini'aadamku uu wadaago ee uu wada rumaysan yahay baa geeri.
intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xariiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii ka horeysayna waa geeriyootay inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa la isku wada ridaa haddaad xoolo badan shaqaysato bilyaneer ahayd laba maroo yaroo cadcad inta lagugu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu ridi haddaad faqiir ahayd qaadaama dhargaan oo aan waxba haynin labadaa maruunbaa lagugu duuduubay xabaashaa lagugu ridi haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay maradaa unbaa lagugu duuduubaya halkaa unbaa lagugu ridaya haddaad nin iska xamaaloo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocba wixiiba ma maradan yare lagu duuduubaya ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cad inta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa inay qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan man yutic illaaha maxaa ku xiga والرسول maxaa ku xiga ilaahay wuxuu tilmaamayaa ciddii ilaahay iyo rasuulkiisa adeecday ayaa maxay ayaa fawska alfawz alcadiim kuwaasaa helay